tartanka Euro ee toddobaadkan la baasan doonaa waana midka ugu xiisaha badan dhammaan taageerayaasha kubadda cagta ay indhaha ku hayn doonaan. Waxaa jira ciyaartoy daayar oo kooxooda bandhig wanaagsan ka soo sameeyay sanadkanna ee qarsabta inay u daawato tartanka Euro. Xidigaha ugu fiican ayaa haatan magac ka sameeyay kubadda cagta kooxaha, halka qaar kale doonayaan inay adduunka isbaraan adduunka tartankan Euro 24 xul ayaa isaga hor imaan doona Euro iyadoo xidiga daayar ay ka buuxaan kuwa oo dhawaan noqday 22 sano jiro. Waxaa jira xidiga wax yar ka soo muujiyay toddobaadyadii ugu dambeeyay. Waxaa jira xidiga wax yar ka muujiyay tayadooda xilli ciyaareedkii dhamaaday tartamada Yurub ee kala duwan haddii aan la horyaalada iyo tartanka Champions League. Waa kuwa daayarta loo daawan doona sanadkan tartanka Euro ee ka soo muuqan doona xulal kala duwan ee ka qaybgali doona tartanka. Xulka Ingiriiska waxaa ku jira ciyaartoy daayar oo aad u wanaagsan. Waxaa loo soo qaatay Jude Bellingham oo u suurageliyay Real Madrid Champions League. Ingiriiska ayaa loo daawan doonaa leeyahay lambarka 10 ee xulkaasi. Spain waxay wataan ciyaartoy daayar oo aad u wanaagsan, bandhigooda kooxahan oo aad u sareeyay. Lamine Yamal ayaa laga magacaabay ciyaartoyda Spain ee indhaha lagu hayn doono daayarkaasi. Jarmalka ayaa loo soo qaatay Florian Wirtz, daayarka Bayer Leverkusen sanadkan u suurageliyay inay wacdaraha ka dhigto qaaradda Yurub. Jarmalkana qayb ayuu ka yahay waana daayarta loo daawan doono ciyaaraha Euro. Jarmalka waxaa ku jira ciyaartoy kale oo daayar loo soo qaatay waa Jamal Musiala. Ingiriiska waxaa qayb ka ciyaartoyda daayarta la soo qaatay Kobbie Mainoo. Manchester iyo bandhig wanaagsan ka sameeyay ka u suuragashay xulkiisa inuu helo dooqa Gareth Southgate. Slovenia ayaa loo soo qaatay Benjamin Sesko. Waa daayar aad looga raadinayo suuqa Arsenal aad u doonayso. Euro ayaana ku daawan doonta bandhigiisa haddii aadan daawan. Thierry Emery waa daayar ka tirsan kooxda Paris Faransiiska. Xulkaasi ayaa lagu daawan doonaa tartanka Euro ee dhawaan bilaaban doona. Xulka Holland waxaa loo daawan doonaa ciyaartoy daayar ugu horay Xavi Simons, daayarka Paris u soo ciyaaray waana mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican ee Holland laga daawan doono. Denmark waxaa loo daawan doonaa daayarka Rasmus Højlund oo Manchester sanadkan qayb ka ahaa, waana ciyaartoy qayb ka tartanka Euro. Joao Neves ayaa qayb ka ciyaartoyda aadka indhaha lagu hayn doono ka qayb ka ciyaartoyda Portugal ee sanadkan u soo wateen tartanka Euro. Georgi Sutokavni lagu magacaabo oo qayb ka ciyaartoyda Ukraine ayaa loo soo qaatay daayarka loo daawan doono iyaguna. Waa ciyaartoy daayar ee sanadkan qasabta inaad ku daawato ciyaaraha Euro ee dhawaan bilaaban doona.